Assalaamu calaykum dhammaan odayaasha nagu xiran meel walba adduunka ka joogtaan isku soo noqosho wanaagsan oo qurux badan. Ku soo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaalka aan maanta idiin hayno waa uu ka duwan yahay muuqaaladii hore aan idinkugu soo gudbin jirnay. Waa muuqaal murugo xambaarsan. Sidaa wada ogtihiin Cabdimaalig Muuse Coldoon oo ahaa wariye ama samafale sameeya arrimaha samafalka ayaa waxa uu asiibay cudurkii coronavirus siday xaqiijiyeen maamulka Somaliland oo ay sheegeen dhacaan ay ka qaadeen wariye Coldoon ay u direen dalka dibaddiisa si baaritaan dheeri ah loogu sameeyo. Sidoo kale Farxiyo Kabayere oo ah fanaanad Soomaaliyeed ayaa iyadana gabar walaasheed ah oo xaamil ah waxaa asiibay cudurkii, iyadoona ummadda Soomaaliyeed ka codsatay inay u soo duceeyaan. Sida aad ka arki kartaan qoraalka ay soo dhigtay Facebook-keeda oo ay Soomaalida kaga codsanaysa inay u soo duceeyaan walaasheeda. Waxaa soo badanaya dadka ku dhacaya cudurkan iyadoo Soomaaliya haatan ay marayso cadad tiro badan. Hore waxa uu ugu dhacay Aamino Muuse oo ahayd wariye hore oo BBC-da ka shaqayn jirtay. Sidoo kale waxa uu cudurkani ku dhacay wariye caan ah oo lagu magacaabo Cabdicasiis Afrika oo ka shaqeeya warbaahinta isla markaasna ka tirsan telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Waxaa soo badanaya Soomaalida uu ku dhacayo cudurkan weliba dalka gudihiisa waxa uu marayaa dadka ay ku dhacday cudurkani 500 halka dhimashada maanta kaliya ay marayso 19 qof. Taasina waa cadad aad u badan. Waxa keeni kara ayaa la isleeyahay waa qaadashada caafimaadka talooyinka la siinayo dadka Soomaaliyeed. Muuqaalkani koobnaa daawadayaal maanta intaas ayuu ku koobnaa. Fadlan haddii aad channelkan ku cusub tahay subscribe saar, like saar muuqaalka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaalada aan soo gelin. Share asxaabtaada la wadaag. Next video ayaa inoo balana. Sidaas iyo nabadgelyo. Ramadaan Kariim. Allihii ku hayo kaligiisa wax kastaba karaayo Allah kulli shay qadiraya Allah ku sugnaatay rabbiyo Allah noo kaalmeey ya Allah karimo ilaahu noo kaalmeey ya Rahmaan karimo ilaahu noo kaalmeey ya Rahiim karimo ilaahu noo kaalmeey Allihii ku hayo kaligiisa wax kastaba karaayo Allah kulli shay qadiraya Allah ku sugnaatay rabbiyo Allah noo kaalmeey ya Allah karimo ilaahu noo kaalmeey ya Rahmaan karimo ilaahu noo kaalmeey ya Rahiim karimo ilaahu noo kaalmeey dunida kala oodane noo kaalmeey koonka kala xirxirane noo kaalmeey dadka wada kala tiirane noo kaalmeey karimo ilaahu noo kaalmeey ya Rahmaan karimo ilaahu noo kaalmeey ya Rahiim karimo ilaahu noo kaalmeey dunida kala oodane noo kaalmeey koonka kala xirxirane noo kaalmeey dadka wada kala tiirane noo kaalmeey karimo ilaahu noo kaalmeey ya Rahmaan karimo ilaahu noo kaalmeey ya Rahiim karimo ilaahu noo kaalmeey COVID-19 allow naga kori COVID-19 kurbadiyo halistiisa karimona dhaafi COVID-19 karimo ilaahu noo kaalmeey COVID-19 allow naga kori COVID-19 kurbadiyo halistiisa karimona dhaafi COVID-19 karimo ilaahu noo kaalmeey coronavirus dadkeena Soomaaliyeed kuligooda kuwa maqan iyo kuwa jooga kariima loo ka badbaadi allow naga kori kariimo na dhaafi COVID-19 coronavirus allow naga kori kariimo na dhaafi COVID-19 coronavirus
karimo ilaahu noo kaalme ya raxmaan karimo ilaahu noo kaalme ya raxiim karimo ilaahu noo kaalme coronavirus dadkeena Soomaaliyeed kuligooda kuwa maqan iyo kuwa jooga kariima loo ka badbaadi allow naga kori kariimo na dhaafi COVID-19 coronavirus allow naga kori kariimo na dhaafi COVID-19 coronavirus karimo ilaahu noo kaalme ya raxmaan karimo ilaahu noo kaalme ya raxiim karimo ilaahu noo kaalme kataxadira Soomaaliya caabuqa faafay COVID-19 coronavirus kurbadiyo waxyeelada coronavirus karimo na dhaafida coronavirus kataxadira Soomaaliya caabuqa faafay COVID-19 coronavirus kurbadiyo waxyeelada coronavirus karimo na dhaafida coronavirus karimalo na dhaafi andano coronavirus karimalo na dhaafi andano coronavirus karimalo na dhaafi andano coronavirus karimalo na dhaafi daha